Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Mohamed Cagjar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in dagaalka ka socda Itoobiya uu u dhexeeyo argagixisada TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya. Dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya wuxuu u dhexeeyaa argagixisada TPLF iyo dowladda federaalka ee Itoobiya ee uma dhexeeyo laba deegaan oo dhul isku haysto. Waxaa argagixisada TPLF u qorshaysan in ay dumiso nidaamka hadda jira, dibna saameyn ugu yeelato siyaasadda dowladda dhexe si ay mar kale u gumaysato shucuubta dalka ee ay Soomaalidu ka mid ka tahay, ayuu yiri qoraalka uu soo dhigay bartiisa Facebook. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in baraha bulshada ay taageerayaasha TPLF la dhex wareegayaan talooyin liita, kuwaas oo uu ku tilmaamay inay kabaha u qaadayaan dadkii horay u xasuuqay shacabka deegaanka Soomaalida. Waxaa ayaamahan baraha bulshada talooyin liita la dhex wareegayay taageerayaasha TPLF oo u badan kuwii shalay kabaqaadka u ahaa kooxdaas markii ay xasuuqayeen shacabka deegaanka Soomaalida. Waxa ay rajeynayeen in argagixisadu dumin doonto dowladda dhexe, halkaasna ay uga soo bixi doonto fursad kabaqaadnimo oo ay dadkooda mar kale ku duleynayaan, ayuu madaxweynaha raaciyay hadalkiisa. Kadib markii jabhadda Tigreega ay la wareegeen magaalooyin Korem iyo Alamata, gobolada kala duwan ee dalka ayaa bilaabay inay ciidamo u abaabulaan deegaankaasi. Gobolka Axmaarada ayaa sheegtay in kooxda TPLF ay soo weerartay. Saraakiisha gobolka Axmaarada ayaa ku dhawaaqay inay qaadanayaan dagaal cusub oo ka dhan ah ciidamada Tigreega. Ciidamada Tigreega ayaa la wareegay magaalooyin muhiim ah toddobaadyadii la soo dhaafay. Kisajow, agaasimaha guud ee xafiiska isgaarsiinta gobolka Axmaarada, ayaa sheegay in dulqaadkii uu ka dhammaaday. Maanta laga bilaabo waxaan bilaabi doonaa weerar cad, ayuu yiri. Ciidamada amniga ee howlgabka ah ayaa loogu yeeray inay abaabulka iska caabinta ee ka dhanka ah TPLF ay ka qayb qaataan, iyadoo sidoo kale dhammaan dadka gobolka Axmaarada loogu baaqay inay si mutadawacnimo ah isku abaabulaan. Dhanka kale, warbaahinta maxalliga ah ayaa tabisay in Oromiya, Sidaama iyo SNNBR ay ciidamadooda gaarka ah u direen aagga colaadu ka taagan tahay. Arbacadii, Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo sarkaalka ugu sarreeya militariga dalkaasi Genaraal Baja Dibeli waxay shacabka ka codsadeen in la taageero ciidanka iyo dowladda. Maamulka deegaanka Axmaarada dhankiisa wuxuu sheegay deegaanada ay shacabka Axmaarada muddo u soo halgamayeen ee jiritaankooda ku xiran, sida deegaanada Raaya, Alamata, Walqayd, Sagadi iyo Satiid Humera inay difaacanayaan. Abiy Ahmed fariintiisu wuxuu ku sheegay shacabka Tigreega dareenka aan u qabno iyo beesha caalamka heerka aan u joogno markii ugu dambeysay ayaan tusnay. Wuxuu intaas ku daray, nabaddu waxay nooga baahan tahay xoogaa naf hurid ah, haddana waxaan ogahay xalka ugu dambeeya inuu yahay nabad. Innaga oo dadaal ugu jirno in aan fududeyno howlaha gargaarka bini'aadanimo ee lagu gaarsiinayo deegaanka Tigreega, haddana dhinaca kale cadowgeena gudaha iyo dibadda oo iskaashanaya waxay nagu soo qaadeen dagaal ay u midaysan yihiin.
kulligoodna waan iska celin doonaa ayuu sii raaciyay hadalkiisa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Dagaalka Itoobiya ma wuxuu isku bedelay mid qabiil tan iyo markii uu dalka Itoobiya ka dhacay isbedelka uu majaraha u qabtay Dr. Abiy Ahmed waxaa sii badanayay khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad deegaanka Tigreega iyadoo uu deegaankaasi uu ku doodayo inay dowladda hadda ka arrimiso dalka Itoobiya nidaamkii federaalka ee lagu heshiiyey god ku sii ridayso tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiye Mangista Haile Mariam sanadii 1991 ilaa 2008 TPLF waxay ahayd saaxiibka ugu weyn ee isbahaysigii xukunka xilligaasi hayay. Sidoo kale waxay maamuleysay gobolka Tigray laftigiisa. Kooxda TPLF ayaa door muhiim ah ku lahaa jaga ka tuuristii madaxweyne Mengistu waxayna doonaysaa oo kaliya inay maamusho siyaasadda wadanka iyo sidoo kale dhaqaalaha. Xiisad ayaa ka taagan gobolka Tigray kadib markii ra'iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay tallaabo military oo ka dhan ah maamulkaasi. Is-afgarad waaga ka dhex jira TPLF iyo Master Abiy waxay ka dhigan tahay jab xoog leh oo salka ku hayo awoodda dalka. Inta badan hogaamiyaasha gobolka Tigray oo uu ka mid yahay Master Debretsion waxay ka soo shaqeeyeen dowladda dhexe muddo dheer. Master Debretsion oo ah halgamaa ayaa mar soo noqday ra'iisul wasaare ku xigeen. Saaxiibadiisa kale iyo taliyayaashiisa ayaa sidoo kale xilal muhiim ah ka soo qabtay dalka ilaa Master Abiy uu xukunka qabtay. Guddiga fulinta ee deegaanka ismaamulka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa bishii September sheegay in go'aan kasta oo golaha federationka ka soo baxa oo lagu joojinayo doorasho ka dhacda deegaankaasi uu ula mid yahay dagaal la iclaamiyay oo lagu soo qaaday deegaanka Tigreega. Shacabka Tigreega waxay xaq u leeyihiin inay doortaan ciddii hogaamin lahayd halka la rabay in lagu dhiirigeliyo in la carqaladeeyo doorashadooda waa mid lid ku ah geedi socodka dimuqraadiyadda ayaa war murtiyeed lagu yiri. Hase yeeshee golaha ayaa go'aamiyay in dowladda ay maamulka sii hayso muddo aan la cayimin iyagoo amar ku bixiyay in doorashada dib loo dhigo sababo la xiriira cudurkii coronavirus-ka. Arrimahaas ayaa horseeday xiisad weyn oo ka dhex dhalatay xukuumadda uu hogaaminayo Dr. Abiy Ahmed iyo siyaasiyiinta gobolka Tigreega. Gobolka Tigreega ayaa looga dhawaaqay in doorashadiisa aan dib loo dhigi doonin waqtigii sharciga ahaa taasoo horseeday ismarin baaxad leh. Maamulka Tigreega ayaa ka dhaga fureystay digniinaha iyo fariimaha uga imaanayay aqalka sare, guddiga doorashooyinka qaranka iyo dowladda dhexe ee dalkaasi Itoobiya. Intaba xiisadda taagan waxay sare u qaaday cabsida laga qabo in xisbiga Tigreega ee TPLF uu tallaabo u qaadi karo sameynta maamul u gaar ah oo ka madax bannaan federaalka Itoobiya. Siyaasiyiinta TPLF waxay mar walba ku celcelinayeen inay diyaar u yihiin sidii uu gobolkaas oo xad la wadaago Eritrea uu uga sii mid ahaan lahaa Itoobiya, laakiin waxay hoosta ka xariiqeen in ay difaacan doonaan waxa ay ugu yeereen ismaamulka iyaga u gaarka ah. TPLF waxay horaan dowladda dhexe ugu eedeysay inay wado qorshayaal ay ku soo weerarayso gobolka.
xisbiga TPLF ayaa awoodda dalka Itoobiya gacanta ugu jirtay ku dhawaad 30 sano markaas oo uu ka dib Abiy uu xukunka kala wareegay sanadii 2008. maxay TPLF doonaysaa? Maamulka Tigreega wuxuu dib u habeyn Master Abiy. Maamulka Tigreega wuxuu dib u habeynta Master Abiy u arkaa inay tahay isku day lagu doonayo in lagu dhiso nidaam dowladeed oo midaysan kaas oo lagu burburinayo nidaamka federaalka ee hadda jira. Sidoo kale TPLF waxay ka biyadiidan tahay waxa ay ugu yeertay saaxiibtinimada aan mabda'a lahayn ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu kula heshiiyay dowladda Eritrea. Master Abiy wuxuu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobelka sanadii 2009 taas oo uu ku muteystay dadaalkiisii ku aadanaa nabadeynta colaadda dabada dheeraatay ee Eritrea iyo Itoobiya. Laakiin kooxda TPLF waxay dareensan tahay in danaha Tigray la iska indhatiray, waxayna doonayaan inay wax badan ka yiraahdaan xiriirka mustaqbalka ee wadanka dariska la ah Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha ayaa dhankiisa wuxuu aaminsan yahay in saraakiisha TPLF ay wiiqayso awoodiisa